السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا soo dhawaada waxaa rajeynaa caafimaad qabtiin insha allahu tacaala halkan waa su-aal cunto karin mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay barnaamij aad u muhiim ah barnaamijkaas oo ah faa-iidooyinka uu leeyahay canabka hadda haddee tahay marka kugu horeysay aadna soo booqato fadlan subscribe noo saar insha allahu tacaala halkan waxaad kala tegi doontaa mawduuc ama xog aad u muhiim ah haddaba mawduucan ayaan usii galaynaa faa-iidooyinka uu canabka leeyahay ayaan mid u geli doonaa faa-iidooyinka canabka uu leeyahay waxaa ka mid ah in uu canabka saro u qaado wax loo yaqaano caafimaadka wadnaha in uu ka hortago ama uu yareeyo wax loo yaqaano dhiigkarka iyo kolestaroolka sidoo kale canabka waxa uu ka hortagaa wax loo yaqaano macaanka ama diabetic sidoo kale faa-iidooyinka canabka waxaa ka mid ah inuu u fiican yahay aada iyo aad 100% maqaarka iyo timaha sidoo kale faa-iidooyinka canabka uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu aada ugu fiican yahay indhaha iyo difaaca jirka sidoo kale wuxuu aada ugu fiican yahay lafaha iyo cudurada kansarka iyo xanuunada ku dhaca maskaxda sida alzheimer haddaba mid ayaan ku galaynaa faa-iidooyinkaas insha allahu tacaala canabka faa-iidada ugu horeysa ayuu leeyahay canabka waxa uu sare u qaadaa caafimaadka wadnaha canabka waxa uu ka hortagaa in halbowlayaasha dhiigga ay xirmaan sidoo kale canabka waxa uu ka hortagaa ama uu yareeyaa kolestaroolka xun daraasad la sameeyey ayaa lagu arkay in joogtaynta cunista canabka ay hoos u dhigto kolestaroolka xun faa-iidooyinka canabka uu leeyahay waxaa ka mid ah in uu hoos u dhigo dhiigkarka canabka waxaa ku jirta macdanta botasiyum oo xakamaysa cadaadiska dhiigga botasiyumta badan iyo heerka sodiyumta ee yar waxay hoos u dhigaan khatarta wadna xanuunka faa-iidooyinka canabka waxaa ka mid ah in uu yareeyo heerka kolestaroolka canabka waxay hoos u dhigtaa heerka kolestaroolka waxayna caawisaa isku dheelitirka dufanka taas oo hoos u dhigaysa khatarta wadna istaagga iyo xanuunka xididka wadnaha ku dhaca ee loo yaqaano coronary artery disease canabka waxa uu ka hortagaa macaanka canabka waxaa ku jirta maado loo yaqaano resveratrol oo caawisa in sonkorta dhiigga heerkeeda dabiiciga aysan iska bedelin ama faa-iidooyinka canabka waxaa ka mid ah caafimaadka uu leeyahay maqaarka iyo timaha canabka waxaa ka buuxo fitamiin c oo muhiim u ah difaaca jirka wuxuuna kaa caawiyaa ka hortagga xanuunada jeermisyada ka dhasho sidoo kale fitamiin c-ga wuxuu muhiim u yahay caafimaadka maqaarka dadka joogteeya canabka jirkooda dhaqsi ma yeesho calaamadaha duqnimada sida laablaab ama duubduub canabka maqaarka wuxuu sameeyaa dalaal dabiici ah wuxuu daweeyaa finanka wuxuu timaha ka ilaaliyaa daadashada iyo xirada faa-iidooyinka kale ee uu leeyahay canabka waxaa ka mid ah caafimaadka uu leeyahay indhaha canabka wuxuu kaloo ka hortagaa daawona u yahay xanuunada ku dhaca indhaha ee loo yaqaano macular degeneration ciladaani waxay timaadaa qofka markuu duqoobo wuxuu kaloo ka hortagaa caadka indhaha fuula faa-iidooyinka kale ee uu leeyahay wax loo yaqaano canabka waxaa ka mid ah kobcinta difaaca jirka canabka wuxuu ka mid yahay cunada kor u qaada difaaca jirka sidaan horey muuqaalkeena ugu soo sheegnay waxaa ka buuxo fitamiin c oo ka hortaga bakteeriyada fayrasyada iyo infekshanada waxaa kaloo laga helaa fitamiinka e oo qayb ka qaata kobcinta difaaca jirka isagoo ka saacido waxyaabo badan oo jirku u baahan yahay caafimaadka ama faa-iidooyinka uu leeyahay caafimaadka canabka waxaa ka mid ah canabka waxaa ku jira
maadooyinka calcium, vitamin K, magnesium, iyo potassium oo dhammaantood qayb ka qaata kobcinta cufnaanta lafaha. Canabka wuxuu ka hortagaa xaaladda lafa burburka oo ku badan dumarka. Faa'iidooyinka uu leeyahay canabka waxaa ka mid ah in uu la dagaalamo cudurka kansarka. Mirahan waxaa ku jira maadooyin ka hortaga koritaanka iyo fidista kansarka, khaasatan kansarka ku dhaca naasaha iyo kansarka ku dhaca malawadka. Faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay canabka waxaa ka mid ah in canabka uu u fiican yahay maskaxda. Canabka waxa uu hoos u dhigaa madax xanuunka, waxa uu xoojiyaa caafimaadka maskaxda, waxa uu ka hortagaa cudurka maskaxda burburiya ee loo yaqaano Alzheimer. Qofka uu ku dhacana oo uu noqdo daawo wax badan ka caawisa. Mirahan canabka waxay xoojiyaan xusuusta, waxayna wanaajiyaan dareenka qofka. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan, la wadaag asxaabtaada, like, share, comment. Insha Allah tacaala anagana waa idin soo badin doonaa muuqaalada sidaan oo kale waxtar kale. Waa tanidiin.